xuska hidaha iyo dhaqanka Soomaalida ayaa sanadkii labaad waxaa lagu qabtay magaalada Pyramid oo ku taala koonfurta gobolka Minnesota waxaana soo qaban qaabisay hay'adda Hiddasoor oo kamid ah hay'adaha ka dhisan gobolka Minnesota waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi si wada jir ah madaxda iyo qaar kamid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota munaasabadaasi ayaana kamid ah munaasabadaha la isugu diyaarinayo maalmaha xorriyadda ee ku faanto guud ahaan dadka Soomaaliyeed maanta waxa weeye waa maalin weyn waa maalin Soomaaliyeed waa maalin qaali ah oo Hiddasoor ay soo diyaarisay sanad kasta waxaan qabanaa bishan oo kale maalinta waxaan ugu talagalnay faamiliyada Soomaaliyeed ciyaalka maadaama fasaxyada iskoolada lagu jiro waxaan rajaynayaa barnaamijyo ka fiican oo da'yartaana insha Allah inaan keeni doono aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb gasho waxna bulshada Soomaaliyay calankaas wax isugu naay inagii idinku yaa midnimada calankaas hal la dhowro walaaltinimada hal la dhowro magacaygu waa Hodan Xasan waxaana xildhibaanad laga soo doortay Minneapolis laakiin waxaan matalaa Soomaalida state-ka Minnesota oo dhan waxaan rabaa in idin sheego qofku wuxuu sharaf ku leeyahay hidihiisa iyo dhaqankiisa dhaqankeena mar walba in kor loo qaado caruurta la baro luqadda dhaqanka la baro because hadaad aqoonin meesha aad ka timid meesha u socotidna ma garanaysid waxyaalo badan oo halkaan aan ku soo koobi karin baan soo qabanay aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhaqankeenna waa dhaqan jira jiritaankeena midnimadeenna horumarkeena waa in hal iyo jeer laga shaqeeyaa caruurteennana waa inaad ka war haysaan My beautiful people mashallah waxaan u mahadcelinayaa Hiddasoor ideada Hiddasoor waxay ka dhalatay walaalkeen Nimcaan a few years ago ayuu u yimid ideadan naga dhaadhiciyay Hiddasoor waxa waaye hidiya dhaqankeena inay live ka dhigto xaqiiqdii walaalahay maaragtay xildhibaan Hodan Xasan iyo council member Jamaal Cusmaan baa intii la dhihi lahaa hore u sheegtay message yar baan rabaa inaan ii dhiibo this is message for the young people caruurta in laga warhayo dhalinyarada in laga warhayo waa dhalinyarada 14 jir 15 jir 17 jir Thank you for listening. Please make sure to share, like, and subscribe to Runta News channel on YouTube, Facebook, and Twitter.